بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن عبد الرحمن سيلعي مدحنا كحيانك سومالي لان. مدن إبراهيم عثمان فارح مدحنا كحيانك ديانك سومالي دا. قراد كلمية قراد محمد يو وضياشة دقن كي ديانك سومالي دا. والباودينك أوينك حلوانا دا شرفت له ويقوه الرئيسو مروى أيان عبدي يو انت كله aanan ku xusin magacyadooda halkan aan ku soo xusin ama qaybaha ka tirsan yihiin dhammaantiiba marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ka mahadnaqaynaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ee aad maamuuska maanta aan sameeynay asaaska dawladda deegaanka Soomaalida ee shanta sano soo socota hogaamin doonta aad uga soo qayb gasheen iyo dhawaad adeega aad muujiseen iyadoo ognahay in duruufo fara badan ay jiraan waxaan filayaa in la joogo nin oraah caana bixiyay oo Somaliland ka socda dhaxantu caawa intii aan naqaanay way dhaaftay oo indha la yiraahdo ma ragooda intii yaqaanay way dhaaftay baa jira dhaxantu intii aan naqaanay caawa way dhaaftay hadal inaan dadka ku sii wareernana ma rabo guud ahaan wixii khudbad ahaa qaar qayb ahaana maanta la jeediyay wixii kalena shaqada dawladnimada bariya bilaamaysa hadii aan la yiraahdo bari subax bay bilaabmaysaa wax lagu habsaamayo hadda ama magacaabito ama nidaamyo noocaas ah wareega waqti lagu lumi kara maaha waxaan oran karnaa 8 bilood ku dhawaad wax fara badan oo in qabsooman ah oo noo qabsoon waayay maadaama dhanka niyadda iyo dhanka waqtigaba doorasho uu lagu jiray si uu doorasho lagu jiray ayaa jira oo mashaariic ugu horeeyaan marka waa inaan shanta sano nima sugayaan bari arootiyaan bilowno shaqada guud ahaan hal arrin baan rabaa in halka uga faa'iideysto oo ah marka magacaabid la sameeyo kaalinta odayaasha dhaqanku waa muhiim iskuma helayno dhinacna in la yiraahdo reerkanaga xafiis weyn wax loo yaqaan xafiis weyn macnaheedu maaha dhismaha xafiiska marka laga hadlayo shaqaalaha uu leeyahay maaha waxa weey miisaaniyadda taalawi marka laga hadlayo xafiis weyn leeyahay reerkanaga xafiis weyn lama siin oo macnaha ku noolaan lahayn iyo kolka shaqooyinka la bilaabay in dawladda lagu dhaliilo la yiraahdo musuqmaasuq baa jira oo ummadii maaragtay adeegii loo baahnay cadaaladii ma helayso la isku ma helayo marka ay ogaadaan wax dhiga loo dhigay arrintaas inay jirin lagana waantoobo haddii ay ka dhab tahay odayaashu inay saxaan kaalmihii ka khaldamay hadda ka hor ee hayna bulshadooda u horseedaan wanaag waa inay ka guuraan fikirka noocaas oo kala cidda arrimaha wadada ay la halgamaan qaybta kale waa hogaamintu inay ku galgalato odayaal iyo waxa macna lahayn loo baahna ilaa iyo xad intii loo baahnaa waa loo dulqaatay dhaqankii noocaas ah in laga soo gudbo laakiin hadda qofka aqoonyahanka isku kalsooni odayuna daba fadhiisanin shahaada ha qaato shaqadiisa ha muujiyo ha dhabar aydo ha dadaalo maanta hadii la arko ay baa la arkaya taa haddii aan sameeyno ayaa horumarka aan ka sheekayno aan gaari karnaa haddii aynaan dhaqan siyaasadeed iyo mid hogaaminta dhaqanka la imanin haba yaraatee waxaan aan sheegaynay ku hadlaynay leh uma baahnahay way macno waxaan u baahnahay meelaha inuu boobno meelaha in saf u galno iyo u baahnahay inaasan fariinta ka dhigi lahaa aad iyo aad u maasay yihiin fanaaniintii caawo dhan maaragtay halkan si agar la'aanta iyagoo kaalintooda uga qaatay insha Allah fagaarayaal kale oo waxyaalaha danta ummadda isku horeysana ay noo iman doonaan waxaan aad u bogaadinayaa xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya anaga noo dhaxeeya dad ehela oo isdhalay oo walaala aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan aad iyo aad u diyaar ugu nahay inaan sii xoojino isdhexgalkaas ilaa iyo heer soo socodka magaalooyinku uu si caadi ah u noqdo sida hadda uu yahay si ka sii fiican iyo in ganacsiga xuduudaha la bilaabo dad suurreyn oo dad maaragtay walaala baan nahay aad iyo aad baan maartay niyad wanaag noo muujin iyo soo magaranaysa ugu mahadnaqaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.